kulankan oo ka qabsoomay madasha kulanada ee maamulka magaalada Qabri Dahare ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar odayaal dhaqameedka magaalada Qabri Dahare waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka iyo sidoo kale odayaal dhaqameedka deegaanka waxaana lagaga wada hadlayay xadhig jarka taariikhiga ah ee jaamacadda Qabri Dahare iyo sidii bulshada qaybaheeda kala duwan ay uga faa'iideysan lahaayeen una soo dhaweyn lahaayeen ardayda ku soo xaroonaysa jaamacadda Qabri Dahare ee ka kala imanaya deegaanada kale ee dalka Itoobiya waxaana shirkani ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo dib u milixsaday marxaladii kala duwanaa ee deegaanku soo maray iyo heerka horumarineed ee waqti xaadirkan deegaanku gaadhay isagoo tilmaamay in jaamacadda Qabri Dahare ay qayb ka tahay horumarka xawliga ah ee deegaanka Soomaaliya Itoobiya marba marka dambaysa uu diiwaan gelinayo maanta waa maalin taariikhi ah ilaa maalinkii shalay ahayd marka xaqiiqo u hadalo waxa weeyaan adduunku marxalado kala duwan soo maraa shalay iyo maanta isku mid waa markii dhab loo wada hadlo cid kastana waa waxay ka maqnad kacayso magaalada Qabri Dahare soo qaadano waxa weeyaan isbedelka maanta ka jira cadow iyo nacab iyo nasteextoona lagu dafiri kara maaha waxa weeyaan uu ka xumaan karaa laakiin ma dafiri karo waayo horumarkii meel kasta uu galeeyaa hadduu dafiri siraaho uu deegaankana joogayo ma dhici karayso hadduu deegaan kale joogana ma dhici karayso gudaha joogana wuu arkaa haddii kalena hooyadii iyo aabii baa isticmaalaya iyo walaaladii baa isticmaalaya marka uu la hadlayo hooyadii iyo aabii waxa uu isticmaalaya waa horumarkii weeyaan ninka soo dibadda joogay horumarkan ma dafiri karo hadduu yiraahdo waan dafiri deegaankan hadduu ka shakeeyo muxuu ku ogaaday inuu deegaanku jiriyo in kale yaa taala deegaanka muxuu ku ogaaday waa inuu soo garaaco la soo xiriiradii telefonka laftiisa maradu waxa weeyaan soo garaacaya telefonkii aynu sameynay waxa uu isticmaalay horumarkeenu waa kan nabadiidka laftiisa iyo kaxaasiska laftiisa la adduunku wuxuu dhisan yahay waxa weeyaan waa habeen iyo maalin adduunka gabigiisu waa habeen iyo maalintii waa inta adduunku markuu dhisan yahay waa inaad ku jirto habeen iyo maalin ku jirto weeyaan taa marka waxa ka dhiganta waa cagsi waa laba iska soo horjeeda ka dhiganta horumar iyo horumar diid nabadgeliyo nabadiid madow iyo cadaan laakiin waxa xaqiiqa nin kasta oo dibadda ka soo hadla iyo nin kasta oo halkan intuu ka hadla la hadla waxa weeye maxaan kula dibadda wuxuu isticmaalayaa horumarkii dawladda deegaanka iyo tii federaalka ay sameeyeen taa weeye waxa isticmaalaya madaxweynaha ayaa sidoo kale bulshada magaalada Qabri Dahare kula dardaarmay inay si diiran u soo dhaweeyaan ardayda ku soo xaroonaysa jaamacadda Qabri Dahare isla markaana ay sii xoojiyaan soo dhaweynta wanaagsan ee bulshada magaalada Qabri Dahare ay ku caan baxday ardada iyo waxa weeye maxaan ku raraa shacabka reer Qabri Dahare waxa weeyaan halkan fadhiya 10,000 oo arday markay timaado halkan 10,000 waxa investigaraynay ee horumarinay kaliya waxa weeye maxaan ku raraa mobile card iyo ibsidaan ba horumara waxa waalidku u soo diray oo magaalada Qabri Dahare ku isticmaalaan ba horumara wax kale iska daa inta meel kale la eegin ba waxa weeyaan ganacsiga magaalada Qabri Dahare waxa ay ku soo kordhin 10,000 oo arday ah oo wax iska cad weeyaan marka waxa ka dhigan tahay hal shakhsi oo magaalada Qabri Dahare yimaada ama jaamacadda 10,000 ku xareysan noqoto ama kulliyadda 2,000 ku xareysan noqoto ama 3,000 ku xareysan noqoto ama kulliyadda caafimaadka ama kulliyadda waxa weeye maxaan ku raayay TTC da ama tan farsamada ku xareysan noqoto waxa weeyaan intaas oo dhanba waxa ay maal gelin ee horumarka ugu horeeya gaar ahaan isticmaalka kharashyada waxa ka faa'iido waa magaalada Qabri Dahare marka waxaan halka qof qaalib kugu yahay ku imanaya adiga marka hal qof ku yimaada oo magaalada Qabri Dahare sixda ka soo toosa wuxuu kugu yahay qaalib kugu yahay marka inaad ogaataan ta kala ardadani markay imanayeen waalidkood intay la tashadeen bay yimaadeen iska ma iman oo ilaahan aabay hooyay maxaan ku rahaa meesha ma tagi karaa oo Qabri Dahare meel ilaaha lagu qoray halka ma taga aabii hooyadii baa soo fasaxay oo waxa weeyaan Qabri Dahare ma taqaana ta ku yiri marka nin kasta oo dhalinyaro oo Qabri Dahare jooga nin kasta waxa weeyaan oday oo Qabri Dahare jooga dumar kasta oo Qabri Dahare ku kasta oo dibadda jooga in waxa weeyaan loo qalmo martigelinta iyo soo dhaweynta yaa loo baahan yahay adduunka waa sumcaduna
waxay ku jirtaa dadkani siduu waxa weeyaan uu noqdo ayay ku xidhan tahay nin kasta waa inuu noqdaa xubin nabadgelyada u taagan magaalada nin kasta hooyo kasta waa inay noqotaa xubin nabadgelyada u taagan noqotaa goobteeda inay ku ilaalisaa nin kasta ay fartaa nabadgelyadu inay noqotaa gudi iyo dibadba haddaydaa nabadgelyada ka shaqaynin maanta halkan maxaan ku raamayna iskugu nimaadeen marka waxa weeyaan nabadgelyadii shalay aad ka shaqayseen maxay dhashay jaamacaddaasay dhashay madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in qowmiyadaha kala duwani ee ku wada nool hal magaalo ay tusaale u yihiin taabagelinta horumarka islamarkaana kala duwanaanshaha iyo si isjacayl wada noolaanshuhu ay keento horumar taabagala qowmiyad kaliya horta xama qabsato u fiirsada qowmiyadaha kala gedisan ee Itoobiya ee la noolahay ee isku jira Itoobiyaanka wadanaay waxay adkeynayaan dawladnimada iyo adkeynayaan magaalooyinka u fiirsada deegaankeena magaalada dad badan ay ku wada nool yihiin way ka horumarsan tahay magaalada waxa weey maxaan ku raay hal beel kaliya ku nooshaa way ka horumarsan tahay taa wax laga qanayo horumarka waxa keena dad iyo kala gedisan oo kala diina oo kala qowmiyada oo kala jinsi ah oo kala dal ah markay magaalada isku yimaadaan ayun bay magaaladu horumaraysaa oo horumar noqonaysaa laakiin magaalada waxa weey maxaan ku raay hebel iyo hebel is garanaysa oo ninka ku soo biiray waa marbar hadii la is garanayo waxa horumar meesha ma yaalo horumar meesha ma yaalo waa in magaalada dad badan oo is garanaynin oo midba afarta jihe adduunka ka yimid ama u baxayo waa in magaaladu yeelato hadii magaalada noqonayso dad is garanay waa in istamara marka waxa weeye kala duwanaanshuhu inuu yahay quruxdeena kala duwanaanshaha qowmiyadaha iyo kala duwanaanshaha diimaha inay yihiin quruxdeena in ma taqaanay ataana ogaataan ayaa loo baahan yahay dhankooda qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka odayaal dhaqameedka maamulka magaalada Qabridahare iyo dhalinyarada ayaa iyaguna tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin xadhig jarka taariikhiga ah sidoo kalena xusay in si diiran ay u soo dhaweynayaan ardayda ku soo xaroonaysa jaamacadda Qabridahare ee ka kala imanaya deegaanada dalka Itoobiya maadaama shacabka magaalada Qabridahare lagu yaqaano soo dhaweyn iyo kalgacayl farxad ku dheehan tahay barbaaran maamulada Qabridahare jeedinayna oo madaxweyne horumarka dhinac walba ah ee magaalada ah dhaqaale soo kordhinaya horumarku soo kordhinaya baxnadu soo kordhinaya marka odayaal culimaaduud dadweynaha reer Qabridahare oo dhan inay gacmaha isqabsadaan oo ka faa'iideystaan baa loo baahan yahay jaamacadda waxa ugu weyn soo kordhinaysaa waxa weeye dhalinyarada imanaysa ee Qabridahare jaamacadda ka dhaxaysa markii wadankooda ku noqdaan koo dhaqanka reer Qabridahare ay qaadanayaan safiirada noqonayaan dadka Soomaalida soo dhaweynta reer Qabridahare way yaqaanaan maanta wuxuu ilaahay opportunity uga dhigay ama fursad uga dhigay in Itoobiya barato qanimadii soo dhaweyntii dadka reer Qabridahare caanka ku ahaayeen arrintan taasoo hadda meesha ugu hayo ee horumarka ah ninkii ka naxa iyo ninkii ku farxa ninkii ka naxana waxba uga sugoobmayaan oo kuwii ka waaweynaa ka horeeyay ee inayna jirin badoonayo horumar yaa waxba u suuroobi waayeen ninkii ku farxana way u noqoto sidii uu doonayay u noqoto kaas guul buu fadhiyaa annagu heer Qabridahare haddaan nahay jaamacadda annaga horta dhagax dhignay intii la dhisayna waan garab taagnay waana sii wadaynaa dadaalkanadii xaasidna u joojin mayno nin xunna u joojin mayno taa waan wadaynaa jaamacadda maanta looga sameeyay Qabridahare wax ilaahay lagu mahadiyo weeyaan oo aan la heli karin dhalinyartuna aad bay u soo dhaweynaysaa farxadda iyo macnaha sida ay uga helaana wax la xisaabi kara ma ah aad iyo aad bay dhalinyartu uga heshay jaamacadda halkan Qabridahare macnaha shalay lagu daafuray waayadan ba dhismaheedu uu ka socday haddana waxbarashadeedu ay bilaabanayso maanta iyo wixii ka dambeeya marka waxaan leeyahay jaamacaddaas annagu haddaan dhalinyartiinahay aad iyo aad bay faa'iido noogu leedahay dhalinyarahan ugu dambeyntiina kulankan ayaa la iskula qaatay in bulshada qeybaheeda kala duwan ay ka qayb qaataan horumarka xawliga ah ee ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya si gaar ahaaneedna in shacabka magaalada Qabridahare ay ka faa'iideystaan horumarka ballaaran ay soo kordhinayso jaamacadda Qabridahare ee hadda dufcadii u horeysay ay ku xaroodeen